waxaan ku hayaa faahfaahinta duqeymo ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe ee dowlad goboleedka Jubbaland xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaas lagu beegsaday iyo dowladda federaalka Soomaaliya war ka soo saartay duqeymo ka dhacay gobolka Jubbada waa markaasi dhexe ee dowlad goboleedka Jubbaland soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 29 bishii shanaad ee May ee sanadda 2020 haddii aynu ku bilowno gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland degmada Jilib deegaano hoos yimaada waxaa saaka ka dhacay duqeymo diyaaradeed ay beegsadeen oo markaas lagu beegsay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ayaana waxay markaas halkaas ka fuliyeen duqeymo diyaaradeed oo lala beegsay saldhigyo kooxda Al-Shabaab ay ku laayeen degmada Jilib deegaano hoos yimaada ee gobolka Jubbada Dhexe kulliyad ay markaas kooxda Al-Shabaab ku tarabareysay saraakiil ay ku beerinayso ciidankeeda iyo hub iyo markaas dukaano ay halkaas ku laayeen ayaana la beegsaday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in saaka waa berigii hore markaas duqeymo lagu qaaday weerar ku bilowday duqeymo lagu qaaday degmada Jilib deegaano hoos yimaada ee gobolka waa markaas Jubbada Dhexe dowlad goboleedka Jubbaland wali kamaysan hadleen deegaanada ay maamusho ee saaka ay duqeysay dowladda federaalka Soomaaliya halkaas oo lagu duqeeyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab saraakiil ajaaniba iyo kuwa Soomaaliya ayaana kamid ah dadka lagu dilay duqeymahan maanta ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe ee dowlad goboleedka Jubbaland mudooyinka u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya waxay waday duqeymo ay la beegsanayso xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee deegaanada ee markaas kaga sugan yihiin waa gobolka Jubbada Dhexe dowladdu waxay sheegtay in markaas mudooyinka u dambeeyay ama ay doonaysay inay duqeymo ka fuliso gobolka Jubbada Dhexe iyo deegaanada hoos yimaada ee markaas dowlad goboleedka Jubbaland mudooyinka u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya waxay waday guluf ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka gaar ahaan gobolada Jubbada Dhexe Jubbada Hoose iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose ayaana kamid ah deegaanada sida weyn looga saarayay kooxda Al-Shabaab duqeynta ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli kala guurka siyaasadda Soomaaliya ay ku dhowdahay xilli maanta la filayo in magaalada caasimadda Muqdisho looga hadlo xiisadda ka taagan maamulka Galmudug duqeymahan ayaana sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay meesha ka saarto kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya duqeyntan ayaa sidoo kale waxaa lala beegsaday guryo ay markaas ku sugnaayeen saraakiil hogaaminaysay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab inta la xaqiijiyay 160 qof ayaa laga dilay kooxda Al-Shabaab halka saraakiil kalena lagu dhaawacay waa markaas duqeymihii saaka ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe